اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الشباب ألم وأمل. موضوع walaaladu ii dhiibeen wuxuu ku saabsan yahay dhallinyarada oo lagu sifeeyey inuu alam laxaw yahay, dhib, isla markaana uu yahay amal, rajo iyo yidadiilo, iyo ummaddu meesha uu ku jiro horu socodkeedu. dhallinyaranimadu markaa waa marxalo ama waa waqtiyada ugu muhiimsan nolosha qofka bini aadamka ka mid ah. waa waqtigaan odhan karno waa casrahu dahabi, waa waqtigaan odhan karno waa waqtiga ay xadidanto ama muuqato ama soo baxdo qofka shakhsiyadiisu iyo noociyadiisu. waa waqtiga ay burqato ama dilaacdo qaraa'ista iyo dhaqamada qofku uu leeyahay. waa waqti uu muuqdo dhankuu qofku u socon doono bidix iyo midig, ama wax positive ah oo iijaabiya inay ka soo baxaan, ama wax negative oo salbi ah. waa waqti qofka dhallinyarada ahi uu naftiisa guul gaadhi karo, ummaddiisana guul u horseedi karo, bulshadiisuna ay guulaysan karto. waa cagsigoo waa waqti muuqan karta qofka dib u dhaciisa iyo khasaarihiisa iyo liidnimadiisu. waxay dhahdeen shabaabnimadu waa cunsuru tadxiya walfidaa. marka bulshooyinka la eego, waa waxyaabaha keensada altadxiya walfidaa, nafhuridda. waa waxyaabaha keensada dhiiranida iyo horu socodka. waa cunsuru tajdiidi walbinaa bay idhaahdaan. waa cunsurka keensada cusboonaysiinta iyo dhisidda ummadda. sidaa awgeed ayaa waxay idhaaheen shabaabnimadu waa wakhtiga ugu fiican ee qofka noloshiisa soo marta. bulshada dhankeedana waxay dhahaan waa iksiir ilxayaa. yacni geed baa jira bay dadku yidhaahdaan, wixii la saaraba barakeeya. bulshadu waa dhalinteedu dhankay u jeedo waxa barakeeya. dhallinyaronimada waxaa ka horeeya waa fudayd iyo carruurnimo iyo dheeldheel. dhallinyaronimada waxaa ka dambeeya waa da' iyo gabow iyo cidlo fadhi. idan dhallinyaronimadu waa wakhti u dhaxaysa labada xoog. dhallinyaradu dee waa shayga dadku wada jecel yihi. ka yare aan weli xadkaa soo gaadhin waad yartay haddaad tidhahdaa may buu leeyay waan weynay. kay dhaaftee roon haddaad tidhaahda waad yaro weynaatana may dhallinyaraan ahay buu leeyay. labada kooxood, kuwa sare iyo kuwa hooseba, waa meeshay raadcaynayaan. walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إلهي سبحانه وتعالى وكا ضعفي دنكا أبو ريبا ليلي عندوف يريو وحيرو علول هو يكوشيره دبتنا ضعفي الدبديد حوق دنسيي عروري عيدني ما تصومر تكدي بن حوق بعد شيء. ثم جعل من بعد قوة ضعفا xoog dabadii haddana tamar darri baa u noqotaan. idan dhallinyarannimadu
waa wakhtiga u dhaxeeya labadaa wakhti cahdigaa safaha iyo carruurnimadu ay joogto iyo dhallaannimadu carruurnimo waa ciil laga koray soomaalidu tidhaahdaa da'duna waa wakhti qofku maskaxdiisu bislaato laakiin maanka iyo jidhku aanu wada soconin wuxuu caqligu ka fekeraya ama ka warramaya aan jidhku awoodin inuu qabto kala gadaaleeyaan sidaa ogeed ayuha alikhwa wakhtiga uu insaanku muujiyo horumarka iyo waxqabadka iyo tallaabada mid xoog mid cilmiyeed mid jidheed mid aqoomeed waa wakhtigu dhallinyaradayay walidalik baa culammadu waxay yidhahdaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa sababta uu tilmaamay bay yidhaahdaan xadiidka sheegaya qofku aakhiro labadiisa gommadood inaanay ilaahay hortiisa ka zuulaynin 5 su'aalood ama 4 su'aalood riwaayaadka xadiidku labadaba u soo arooraane saad u dhigtaba in la weydiiyo mooyaane yacni qiyaamaha markaad alla hor timaado subxaanahu wa tacaala laa tazuulu qadama cabdi aw qadama bni aadami yowma alqiyaama min cindi rabbih xataa yus'ala can 5 qiyaamaha markaynu ilaahay is hortaagnana qofna kama hor dhaqaaqaya halkaasaa lagugu xejinayaa ilaa iyo aad dhowr su'aalood ka jawaabto mooyaane su'aalaha waxaa ka mid ah can cumri fiima afnaah cumrigaagii wixii aad ku bixisay waxaa kaloo ka mid ah wa can shabaabihi fiima ablaah dhallinyaronimadaadii waxaad ku gaboojisay ama baaliga kaga dhigtay dhallinyaronimadii waa gabowdaa sida maradu marka la xidho ay u gabowdee baaliga u noqoto ayaa waxaa la yidhi waa can shabaabih fiima ablaah iyadoo cumrigoo dhan lagu weydiinayo iyo wixii aad qabatay ayaa wakhtiga kani isagu uu mudan yahay su'aalo gaara in lagaa weydiiyo su'aalihii cimriga lagaa weydiinayo o dhan qaar aan ahayn oo gaara baa wakhtigan lagaa weydiinaya waayo waa fatratu linjaaz waa wakhtigii wax soo saarka marka waa in lagu weydiiyaa wakhtigan maxaad qabatay maxaad soo saartay markaan dhallinyaronimada kaa dhigay ee aad xoogga iyo caqligaba lahayd maxaad qabataan rabbi ku weydiinaya iyadoo lagu weydiiyey cimrigaagii oo dhan wixii aad qabatay su-aalaha waxaa kaloo ka mid a xoolaha xaggaad ka xoogsatay iyo xaggaad ku bixisay waxaa kaloo ka mid a aqoontaadii iyo wixii aad ku samaysay camalah wakhtigaasi waa wakhtiga uu qof wal oo insaani uu dib uga calaacalayo wixii dhaafay wakhtigaa wixii dhaafay ee aanu qabsanin buu ka calaacalaya haddaan dhallinyaronimadii sidaan yeelo haddaan sidaa wuxuu wakhti bixiyey walidalik baa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ibnu cabbaas xadiidka warinayo axaadiista waa saxiixaan tilmaamaya in sha allah nin baa u yimi oo wuxuu nebigu ku yidhi qaala lirajulin wahuwa yaciduhu buu yidhi nin baa nebiga u yimid dabeetana nebigaa wacdiyey calayhi الsalaatu wasalaam wacdigu ninkii u sheegay waxaa ka mid ahaa 5 qodob 5 qodob buu nebigu ku wacdiyey ninka kan 5 qodob maxay yihiin iqtanim buu nebigu ku yidhi iqtanim 5 qabla 5 5 ka haniimayso oo ka faa'iidayso intaanay 5 ku imanin yacni 5 shay ayaa waxay mudan yihiin buu nebi moxamed u tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam saxaabigaasi uu waaninaye wacdinayo inuu si dhaba uga haniimaysto haniimadu waa waxa la helo marka dagaal la galo ee la jahaatamo bacda sabrin wa mujaahadatin wa mucaanaat ayaa haniimo la gaadhaa yacni wuxuu nebigu qadiyadda tan ku tilmaamaya inay tahay qadiyad ah inaad xoog uga haniimayso shay taafihoo xaqiiran laguma yidhaahdo iqtanim dukaankaa wax walba yaanay dadku wax walba ka iibsanayo
warkaale ka qaniimaysa cidina ku odhanmayso ay wax walba iska yaalay laakiin hadduu shay fiicnaayo jabani yaallaan waanad meel kale ka soo helaynin waxaa lagu leeyahy war ka qaniimayso halkan alaabaa taallo aad u baahan tahay inaad si fiican qaniimadu markaa waa wixii xoog iyo sabir iyo dadaal iyo kan lagu keeno waa ilaa haniima baarida buu nebigu ku tilmaamay maalan soonka la soomo maxaa la yidhahdaa shitaaga jiilaalka waqti qabow maalintu yar tahay waxaa lagu tilmaamay soonkooda inay tahay alghaniima albaarida iyo cibaadaadka habeenkii la sameeyo ee habeenkii oo dhan baa dheer oo dhinacaaban dhulka kuu qabanaynin waa inaad iska kacaysaa haniima baarida buu kuwaa nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam idan nebigu wuxuu ku yidhi shan horteed ka haniimayso muxuu yahy shabaabaka qabla haramik dhallinyaronimadaada ka haniimaysa buu nebi maxamed ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam intaanad gaboobin yacni hiya alfursa wakhtiga dhallinyaronimadu waa fursadii walidalik buu nebigu wuxuu leeyahy fursaddaas iyay ku dhaafina haniimayso wuxuu kaloo nebigu leeyahay sixatik qabla saqamik ka haniimayso maxay caafimaadka inta aanad bukoonin qofku markuu bukoodo waa xaalat alcajs waa taahaysaa calaacalaysaa wax badan qaban kari maysid markaad si caafimaadka qabto wax walba waad qaban kartaa nebigu wuxuu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam war wakhtigaad caafimaadka qabto haniimayso wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waghinaaka qabla faqrik marka gacanta wax kugu jiraan aad hanigatay ka haniimayso inta aanad faqiir noqon waxaad bixisaba waayin oo aakhira wax ka sii dhigo wuxuu nebigu leeyahy wa faraagaka qabla shughlik ka haniimayso wakhtigaad firaaqada haysato inta aanad mashquulin dhallinyaraduna wakhtigaa ama haniimay u dhaadhacaan waxayaataka qabla mawtik buu nebigu yidhi inta aanad geeriyoon nolosha ka haniimayso laakiin kuwa uu nebigu yidhi ka haniimayso dadku labay u kala baxaanuun cid fursaddaa ka faa'iidaysata iyo cid fursaddaa ku khasaarta qof aan dhallinyaronimadiisii waxba ku qabanin cilmi ku baran xoolo ku xoogsan ummad wax ku tarin dad ku hoggaamin wanaag ku qabsanin hurdo iyo filim iyo kubad iyo orod iyo seexasho iyo suuq warwareeg iyo intaa ku dhammeeyey qof wakhtigu caafimaadka qabay ismashquulin iyo fadhi ku dirar kaga dhammaatay markuu xanuunsanaya dee waxbaba qaban kari maayo badan qof wakhtigu firaaqada lahaa qofka dhallinyaradii waa wada firaaqo inuu isagu camal samaysta mooyaane qofku markuu weynaado dadka ku xidhan iyo arrimaha laga sugayo iyo waxaa tiro bata laakiin markuu dhallinyarada yahay waa wada firaaqo wax walba wuu qaban karaa laakiin qaar baabay firaaqadu dhib ku noqotaa oo wakhtiga maxaynu ku dilaa kubad daawo filim daawo meel kale daawo suuqa soo orod yacni dhib ay ku tahay firaaqadii ayaaba xanuun ku ah nicmadii uu nebigu laa ka haniimaysa isaga ku ah wuxuu wakhtiga ku dili lahaa buu raadacaynaya walidaalika ayuha alikhwa da'dani waa da' qofku markay dhaafto u calaacalo umamkana cidda dhista ee isbeddelka samaysa ee hoggaanka u qabata waa dhallin wahal kaana saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayh waaalih wasalam ilaa shabaaba oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii la socday dhallinyaro mooyaane miya wax kala ahaayeenba odayadii maxay yidhahdeen markay diintu soo gaadhay innaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin wa innaa calaa aahaarihim muqtaduun bay yidhaahdeen waayaalku waxay yidhaahdeen annagu waxaanu soo gaadhnay dadkayagii waaweynaa waxaanu ka soo gaadhnay diin iyo ku dhaqan iyagoo haysta waa abujahl iyo waliid iyo maxaa la yidhaahdaa abi aalib iyo waayeelkii quraysheed wax islaamay waa fara ku tiris markii hore laakiin yaa islaamay islaamka u gargaaray dhallinyaro islaamkan dadkiina soo gaadhsiiyey dhallinyaray ahaayeen cumar dhallinyaru ahaa abibakar baa ugu weynaayo dhowr iyo 30 jir buu ahaa 37 meelaha waxa kaloo dhami dhowr iyo 20 jira iyo dhowr iyo 10 jiraa bay u badnaayeen
saxaabada macruufka la yaqaanay taariikhda islaamka ku leh waxa la yaqaanay wax bedelay waa dhalinyaro علي بن أبي طالب سقور دلن يرى وقان قارن بو السلامي سعد بن أبي وقاص سقور دلن يرى أبو السلامي الأرقم بن أبي الأرقم سقور دلن يرى دورية بنشرو السلامي عبد الله بن عمر سقور دلن يرى أبو شوقي عبد الله بن عمر بن عاص سقور دلن يرى أبو شوقي ابن مسعود حلي النبي قالوا لده قال أنا قال خير بالحي مركز صحابة وفرسته ابن عفراء نبي عليه الصلاة والسلام دلن يرى هاي باب كستر رقي كور كذي جهادك الرقي كور كيري دل يراي هاي عبادة الرقي كور كيري دل يراي هاي وناقية وحقبتك الرقي كور كيري دل يراي هاي مثلا بعد الأمثلة أريد نسيه نبي عليه الصلاة والسلام بعد قالوا صابحي سعد بن أبي وقاص وحلي ولالكي وكي يربو أركي أرضو ضمان يور محاد وحلي نبي قال ربين ياركو ويريبي يا هدو ياركو واديرتي هاد باللي بل النبي عليه الصلاة والسلام حتى قانين غزوات كقاركو دوحد انتو صوبر دقي دل يردي انو قار بدن يريدن كوا يريرتينا حدا وصحابة الرقا قارا يدادين كاسوان نين يقارنا قمون كسيدة لو ريدي سودا إلهي الرسول كيسيو وان كفي عن هدي حاجة دنبالا دقو قمون كغنستي سكوة نكسينيه وكي ليدي صوبح ومتكالو يرو صحابي يري إلهي الرسول كيسيو كاتي ديسي anuguna markaanu iska laba dhinaciisa dhulkaan dhiga ana ka xoog badan daana ciidanka la igu daro balagdama la yidho kuma baha kanin adna soo raac baa la yidhi ibnu cumar wuxuu ka mid ahaa kuwii markaa loo diiday sanadadii dambe axzaab meelaha ka soo qayb galay yani shabaab bay ahaayeen kuwii cilmiga siday dhallinyaray ahaayeen mucaad ibnu jabal buu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam وانك وقوع علمي بدن ومضيده في الحلال والحرام حرامتي حلاشة وانك نبي محمد دورتي عليه الصلاة والسلام انه نقضه سفير كي سود ريا يمن ان من كاهل كتاب كيتشوغا كريستن كدغان يمن انه دين تغارسيو وكل انك وحدو تجي دون تقوم اهل كتابه فليكن اول ما تدعو اليه وحوه الرياض ويردا شهادة ان لا اله الا الله النقطه ودليرو رجل النبي قدريا عليه الصلاة والسلام ودنضا ودريا علي بن قادني ما قدريا ما قبل هذا قار كودينو حكمه معاذ بن الجبل مركي دنبا ودمن يدوري سد شربا بكودنت مردن به ونبي غيريوده يعني عهد الخلافه ابو غيريوده دوري صدن بو هبا لو تلماما اذا دوري صدن جيري كو هايان علماء ومدى هكته والله قدم بيا فنون تودا علم الفرائض نبي كولي ويقانا افرادكم وزيد زيد وين ير نندل يراه ونكون نبي قدر عليه الصلاه والسلام واليهود مركين وحقرنا امين ما يه عد وحي قرطان ربا waxa la yidhi ninkan baa nin dhalinyaro fahmo badan u dir culimada taariikh qaar kamid ah waxay yiraahdaan 17 casho ku soo bartay afka cibriga sida loo qoro yahuudiya luqadeeda uu xad ku noqdo inuu nabi maxamed kaatib u noqdo waraaqaha murasalaadka ay nabiga iyo yahuudi isweydaarsanayaan iyo heshiisyada iyo waxa la galay inuu nin qori kara noqdo warag rabay inay wax bartaan buu ahaa 17 maalmood inuu cilmi dhan oo luqad ku suga warag rabay inay soo jeedaan wax bartaan buu ahaa waxay ahayn duul cibaadada nicma rajul abdallah buu nabigu tilmaamay ibn umar rag isaga u fiican aduu habeenkii kaco yani wuxuu nabigu tilmaamay مثلا عبد الله بن عمر بن عاص عباده سيكو هايين gabadh baa loo guuriyay waa nin dhalinyaro maanta waxa laga yaabaa dhalinyarada waqtigan joogta naaga raadis iyo suuq wareeg inay ku dawaqeen oo kuwii naaga hore u waayay computerka baadhbaadh iyo qurunka daawo inuu ku dawaqay laakiin aabihii baa intuu soo kaxeeyay kan gabadhu meheriyay dabeetana gabadha xaggeedii ba iskuma buu hawline habeenkiina salaad buu taagan yahay maalintiina wuu sooman yahay odaygiiba maalintii dambe soo maray camar ibnu caas baa gabadhii soo maray wuxuu yidhi naabal ka warran ninkii
waxay tidhi wallahi waa nin fiican laakiin gurigaba saanu imid dee taftayda ma taaban maradaydaba gacantiisuba gaadhin hadduu qiyaas nin dhallinyaro oo loo guuriyey waa inan qurux badan oo qoreeshi guriga u joogto oo xalaal u ah oo aanay hunguri badanba ku haynin oo maxaa hunguri ku haya jannada iyo xuuralcaynta iyo kuwa jooga hunguri ku haya oo muxuu wadaa maalin oo dhanna waa soomaya habeen oo dhanna salaad buu u taagan yahay oo dabeetana aabbihiintu xanaaqay oo yidhi inan reer ka dhalataan intaan kugu daray baad adna cidle ii taagantay inankeen waar buu yidhi waa soo qabtoo nebigu ula tegey ilaahay rasuulkiisiiyow ninka kan gabadh reer hebelaan ku daraysana halkaasuu tafteeda ma taabanin war bal warran baa la yidhi wuxuu sheegay de inuu maalin oo dhanna sooman yahay habeen oo dhanna taagan yihi war qur-aanka imisaad ku dhammaysaa buu nebigu yidhi dee habeen kastaba waa dhammeeyaa buu yidhi ninkani qur-aankaba habeenkii buu ka baxaa salaad isagoo u taagan buu ku dhammaynaya dabeetana riwaayaadka qaarkood wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war 40 ku akhri 40kii cashaba mar dhammee buu riwaayaadka qaar ay sheegayaan markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ka xoogan baan awooda ee dacni astamtic bishabaabi wa quwatii iddaa aan xooggayga iyo dhallinyaronimada ku raaxaystee buu leeyahy raaxada wuxuu u arkaa ilaahay cibaadadiisa markaa wuxuu leeyahy ilaahay rasuulkiisiiyo wii fasax wakhtigan aan xoogganay baan rabaa inaan ka warkeenee markaasaa la yidhi 30kii casho mar dhambe markaasuu dib u celiyey markaasaa la yidhi 22kii casho markaasuu dib suu nebiga hadalka isugu celinayana uu lahaa ilaahay rasuulkiisiiyo iddaa dhallinyaronimadii iyo xooggaan ka faa'iideeye ayuu nebigu markii dambe wuxuu ku yidhi 7 ku akhri kaf badan baan awoodaa wuxuu nebigu ku yidhi 3 wax ka yar qofkii ku akhriya qur-aankaba ma fahmo idan dhallinyaray ahaayeen cibaada markay timaado rag ku ah cilmi markuu yimaado rag ku ah jihaad iyo qiyaada markay timaado dagaalkii dowladdii ugu weynayd ee wakhtigaa jirtay waa dowla romaniya roman empire dagaalkii koowaad ee roman empire iyo muslimiin ay wada galaan 3 nin oo dhallinyaraa buu nebigu madax uga dhigay la yidhi jacfar ha hogaamiye zayd ibnu xaaritha iyo maxay iyo cabdillaahi ibnu rawaaxa iyo jacfar iyo zayd 3daasaa madax looga dhigo la yidhi hebel hadduu dhinto hebela qabto hebel hadduu dhinto hebela qabto 3 nimo waa dhallinyaro waa shabaab bale kaa dagaalkii ku xigay ee qoladaa loo saarayey zayd inankiisii baa looga dhigo 18 jira zayd usaamata bnu zayd ayaa hogaaminaya usaamata bnu zayd oo 18 jira hogaaminaya sidaa awgeed waxay ahaayeen marka dagaal la yimaado rag dhallinyaray ahaayeen saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka la yimaado cibaado dhallinyaray ahaayeen marka la yimaado cilmi iyo barashadii waa dhallinyaro waxay ahaayeen field kasta waxaad garan kartaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii beder markuu galay cabdiraxmaan ibnu cawf baa wuxuu leeyahay dagaalkii bederoo soconaya oo 2 yaryare ay hareeraha kaga jiraan oo dee uu cabsanayo isleeyahay labadan inaan waaba dhallinyare male waaba la dili doonaa rag waaweyn oo xoogan malaa'igtaada ma joogaan ayuu kii koowaad gacanta qabto wuxuu yidhi adeer ninka nebiga looga taag waayey baan rabaaye abujahl waa kee buu yidhi wuxuu yidhi abujahl maxaad ku falaysaa waxaan rabaa maanta midkaaya inuu aakhiro qabta buu yidhi abujahl oo awr leeg buu yidhi halkaa ka muuqdoo dagaalamayaan ku yidhi buu yidhi waa kaa intaan kan tilmaamaya mid kale dhinacay igu dhegay buu yidhi markaasuu yidhi adeer abujahl waa kee markaasaan ku yidhi buu yidhi oo maxaad ku falaysaa waxaan maqlay buu yidhi nebi maxamed baa looga taag waayay calayhi salaatu wasalaam intuu magaalada maka joogaye maanta midkaaya inuu aakhiro qabtaa baan raadin waa dhallinyaro ansaara ibnay cafraa waa 2 nin oo dhallinyaro ansaara abujahlma ma yaqaanin manay arag laakiin waxay cadho u qabaan nimankii nebi maxamed maka ka soo saaray bay ka cadhaysan yihiin dabeetana wuxuu leeyahay maantaa fursadii timi abijahalna joogaaye waxaan rabaa ninka abijahl la ninkan uu cadhaysay xataa bidhaantiisa garan maayo
markaa wuxuu leeyahay dadka iga dhex tilmaama Abu Jahal ku yahay labadiina buu yidhi sida gorgorka intay u haadeen ayaan arkay buu yidhi iyagoo seefta Abu Jahalba ku boobay dhulkay ugu tuureen dabeetana waa soo noqdeen nabiga u yimaadeen mid waliba isagoo le anaa dilay ilaahay rasuulkiisiiyo ninkii waan soo dilay seeftiina miyaa maydheen buu ku yidhi may bali tusa buu yidhi seeftiyo dhiigga labay tuseen dabeetana wuxuu ku yidhi kilaakum aqad labadiinuba waa disheen dhiiggani waa kii Abi Jahal buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam labadiinuba Abi Jahal waa disheen Abi Jahal labadan dhallinyaradii seefahay ku dhufteen dhulkay ugu tuureenee naftu kamay bixin nin kaloo dhallinyara baa soo maray Abi Jahal oo meesha naftu haysato dabeetana wuxuu yidhi war Allaha ku hoojiye maadigii baa halka jiifa buu ku yidhi ninka kale dhallinyaradii waxay yidhahdaan culamaa taariikh waa nin aad u Itaaliyar oo addima dhuudhuuban oo gaaban oo naxiif ah waa Cabdullaahi ibn Mascuud nin aad u tamar yar buu ahaa xagga tamartii xoogga waa kuu nabigu lahaa intay dabayshu ka qaaday marada addimadiisa ay qosqosleen qola saxaabi markaasuu yidhi ma dhuudhuma fiiqnidiisa ku qoslaysaan ilaahay baan ku dhaartay alle agtii buurta Uxud kaga culus buu nabigu ku yidhi labada mijooda fiiqana arkaysaan Uxud ka culus buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtii ibn Mascuud baa kiiyo meesha jooga soo u yimi laabta intuu ka fuulu madaxa ka soo gooyey ay sheegaan kuwa taariikhdu kibirka ninkan haya war halkaa hayga gowracin buu yidhi luqunta iyo yani wuxuu rabaa madax marka la gooyo madax luqurin la socoto qurux badan inuu noqdo xagga dambe ka goob buu yidhi xaggaa ka gooynine Abu Jahal ala kullin saddex nin oo dhallinyaro Abu Jahal ka takhallusay waxaan uga jeedaa saxaabadii Nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen dad dhallinyaro ah oo nolosha bedela ninka dhallinyarada ana markuu dariiqa raaca saxa ah dariiqa ah inuu ummadiisa iyo dadkiisa iyo aakhiradiisa u xoojiyo marka uu raaco waa ka nabigu le calayhi salaatu wasalaam carshu raxmaan maalinta qiyaamaha ay cadceeddu soo dhowaato waa maalin adag qiyaamo waa 50,000 oo sannadoodba meel la taagnaanaya dadka la xisaabaya dunidan aynu joognaaba waxaa laga yaabaa dhowr kun oo sannadood inay soo jirtay inta basharku duqnoolaa 50,000 oo sannadood maalinta qiyaamo weeyaan 50,000 ee sannadood cadceed baa la hoos taagnaanaya dabeetana nabigu wuxuu tilmaamayaa maalintaasi dadka meel hoos oo hadh oo ay hadhsadaan haystaa 7 ka mida buu nabigu yidhi 7 waxaa ka mid ah imaam caadila nin ummad hogaamiyey laakiin cadaalad ku hogaamiyey waxaa ka mid ah maxay 7 uu nabigu tilmaamay washaabun nasha'a fii cibaadati illaah nin dhallinyaro ku koray alle cibaadadii baa ka mid ah ولذلك أيها الإخوة waxaan leenahay namaadijta quraanku uu tilmaamaya inaga ka filan dhallinyaranimada iyo say qiimaha u leedahay ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa dhallinyaro waalidkeed adeecday oo ka dambaysay oo manaasishaa gaadhay manzilo ah waalidka hadalkiisa xataa gowracna ha noqdo inuu noqonayo inuu aqbalayo soo quraanka nebi ismaaciil ilaahay inooga warramayo dhallinyaro ah oo aabihii nebi ibraahim leeyahy waa ku gowracaya oo leh yaa abati ifcal maa tu'mar aabba wixii lagu faray oo dhan samee anigana waxaad helaysaa anigoo maxay anigoo sabraye dhallinyaradan ma wataa waalidka ixtiraamka siinaysa waxaa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya dhallinyaro dhowrsanaatay oo shahwaati nafsigan iyo waxaan ka dhowrsanaatay qisatu yuusuf qur-aanka waa ku akhrideen nebi yuusuf oo gabadh qurux badan oo ay mufasiriintu yidhahdaan sulaykhaa la odhan jiro aad bay u qurux badnayd baa la ydhahaa oo boqortooyada ka tirsan oo boqorku qabo ayaa hunguraysay nebi yuusuf oo addoon ah oo gurigeeda ku hoos nool oo ay ka xoog badan tahay oo ay albaabada u xidhxidhatay oo ay cidlo la joogto oo diiday oo isku dayday inay kufsato uu cararay
ay maryaa ka daldalaacisay dhabarku ay ninkii boqorka ahaa ku kulmeen albaabka ay tiri isaga ay boobayay isna uu leeyahay iyada ay boobaysay oo quraanku ka warramaya iyadoo dumarkii boqortooyooyinkii meelaha joogayba intay u shireen ay ka yaabeen quruxdiisa intay faraha isgoogooyeen kadibna ay tiri la in lam yafcal ma amuru allaan ku dhaartay waxaan faraya hadduu yeeli waayo ama waan xidhi oo kuwa dulaysan buu ka mid noqon ama wuxuu samayn doonaa inuu la tunto dumarka loo baahanya inuu la tunto oo ilaahay baryayo leh rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahayow xabsiga aniga agtayda lagaga jacayl badan yahay waxay igu yeedhayaan waa dhallinyaro aan xaas lahayn oo meel aan laga garanayn jooga qariibku dee wuxuu is idhahdaa ceeboobi mayse soo maaha markaad mid yaroo madoobo meelaha iska ordayato oo habla cadcadaad la joogto adeerku arki maayo reerkiinni kuma garanaya de waxaad odhanaysa ceeboobi maysid laakiin nebi yuusuf ceeboobi maysid ma taagne ee wuxuu taagan yahay xataa hadday xabsi tahay xabsigaan gelaya qur-aanku wuxuu ka warramayaa dhallinyaro asnaamtii la rumaysnaayoo dhan madaxa ka googooyey nebi ibraahim oo dhallinyaro ah oo intuu sanamo madaxa ka gooyey kii u weynaa intuu seefta sudhay ka tegey ay maxay yidhaahdeen waxaanu maqallay fatan waxay ku sifeeyeen wiil dhallinyaro nin dhallinyaro ah oo hadal hayay baanu maqallay bay leeyihin oo qur-aanku ka warramaya fatan yadkuruhu yuqaalu lahu ibraahim qur-aanku wuxuu ka warramayaa dhallinyaro waddankoodii iyo boqornimadii iyo guryihii qusuurtii iyo wuxuu dhan uga hijrooday ilaahay diintiisa inay ilaashadaan oo godgalay qusuurna ka tegey innahum fitya ayaa ilaahay ku tilmaamay ereyga waa loo qastiyey innahum duul ilaahay rumeeyey bay ahaayeen lama odhan waxaa la yidhi dhallin bay ahaayeen shabaab ilaahay rumeeyey innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda ayuha alikhwa qur-aanku wuxuu ka warramayaa markaa dhallinta loo baahan yahay noocay tay walidalik baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka in badan dhallinyaro kala nooca inooga warramay haddaba ayuha alikhwa shabaabku dhallinyaronimadu waa alam waana aamaal waa aamaali lumma oo kuwa aan soo sheegay waa aamaashii waa dadkii wax beddelay waa dadkii qaadada noqday waa dadkii ummaddan hoggaamiyey diintan hadda bilyan iyo badhku ama 2 bilyan dadka ee dunida ay rumaysayeen maanta inta dul saarani intaasoo bilyan iyo bilyanoo horena ay soo dhinteen dhallinyara ilaahay cududeeda ku taagay dhallinyaro laakiin dhallinyaradu mar kalena waa xanuun ummaddu waxay aaminsantahay markay u gudbin kari weydo shabaabkeedaasi shabaabkeedu markuu caqliga toosan waaye uu lumo waa ummad arkaysa gebi inay ka dhacayso yurub maanta in badan oo filosofariskeeda iyo aqoon-yahankeeda iyo siyaasiyiinteedu way qaylinayaan way digayaan maxay ka digayaan mustaqbalkooda dambe waxay leeyihin noocan hadda nolosha ay u socoto haddaynu ku wadno mustaqbalka dambe xataa inaynu wax dhali kari weynaa laga yaabaa wax guursadaba in la waayo mid ka mid a buug buu qoro wuxuu yidhi waxaa ii muuqata buu yidhi yurub oo isugu soo hadheen dad gabgaboobay oo caqli gaboobay leh oo guryo gaboobay ku jira buu leeyahy yacni tajdiidkii baa lumaya markaa yurub mustaqbalkeedu buu leeyahy waa dad wada gebgaboobay oo caqli gaboobay wata oo guryo gaboobay ku jira shabaabkii loo baahnaa inay beddelaan baa muuqan bay leeyihin jiilkan soo socdaa bay leeyihin yurub duniday hogaamisay ha gumaysatay laakiin waxay leeyihin kuwan aanu arkaynaa maaha kuwii hayn kari lahaa caalamkii maanta aanu haynay bay leeyihin caalamkaanu gacanta ku haynay walidalika ayuha alikhwa
dhallinyaranimada markaynu dadka kale ka nimaadno innagu ka Soomaali ahaan ama cumuuman ka muslim ahaan alamka ugu weynayna haystee koowaad waxa weeyaan diyaacu alhuwiya daraad baan ka warramaya mawduucii ahaa maxay alhuwiya qofka muslimka ah identitygiisa waxaan leenahay dhallinyarada tan alamka inaga haysta waxa weeyaan waxa muuqata dhallinyaro badan oo luminaysa huwiyadoodii shakhsiyadoodii dadnimadoodii waxay ku calaamadsanaayeen islaamnimadoodii سعيد بن مسفر الشيخ الله يرضى موضوعا جيدينيا الشباب عالم وامل ايا وحلي الهويه الرسميه اخره بيقول marka xabaasha lagu dhigo هويده lagu weydiinaya buu yiri laakiin waa الهويه الرسميه identity-ga waad geeriyootay caalamkan waad ka baxday xagga tagaysa caalam cusub oo aakhiro ugu horeyso xabaasho عالم البرزخ baad bilaabaysaa wixii ka sii dambeeyana xaggaas aad u sii soconaysaa labada guri ee lagu hoydo mid baad ku socotaa laakiin godkan buu ka bilaabmayaan labada guri ima inuu janno noqdo iyo inuu naar noqdo godkan buu ka bilaabmayaa dan waxa lagu weydiinayaa buu leeyahay identity card-kaaga war balkeen huwiyadaada lagu leeyahay waa laba malag baa qof kasta u yimaada marka xabaasha la dhigo oo munkar iyo nakiir la yidhaahdo oo dadka argagax geliya oo qofka meydka intay soo fadhiisiyaan argagax geliyo weydiiya huwiyada keen identity-gaaga keen identity-gu maalinta ma aha buu yidhi magacaaga cidi ku weydiin mayso oo qoladaada cidi ku weydiin mayso oo xoolaha dunida ku haysatay cidi ku weydiin mayso oo inaad wasiir ahayd iyo inaad madax ahayd cidi ku weydiin mayso saddex su'aalood oo muxaddad baa lagu weydiinaya kuwaas baana calaamadiya identity-ga lagaaga baahan yahay aqoonsigaagu saddexdan su'aalood mu ka dhashaa man rabbuk wama diinuk waman nabiyuk waa identity waa huwiyadaada dhabta ah rabbigaa waa kuma baa lagu weydiin haddaad dunida sugnayd markaad joogto oo dariiqa saxa haysay rabbi allahu baad ku jawaabi waxaa lagu weydiin diintaadu waa maxay haddaad dunida sugnayd waxaad ku jawaabi waa islaamnimo waxaa lagu weydiin doonaa nebigaagu waa kuma ama ninkii laydin soo saaray maxaad odhan jirteen maasaad odhan doontaa waxaan ka markhaati kacaya inuu ilaahay rasuulkiisii iyo nebigiisii ahaa waa su'aalo hadda aynu wada garanayno laakiin jawaabta inaynu wada garan doono lama garanayo sideedaba macluumadu haddii lagu baqogeliyo lagu argagax geliyo macluumaadka maskaxda ku jira way daataan haddii lagu gilgilo lagu idhaa magacaa inaad horeba magacaagii u sheegi kari weydaa laga yaaba inaad cabbaar ku waalato waxaa laga yaabaa baquhu ardada imtixaanka gasha ardaygu hadduu markuu imtixaanka loo dhiibo uu baqo wuxuuba way ka kala cararaan wixii uu soo xifdiyey iyo wixii oo dhan wuu garan waayaa waa dhidid waaweyn unbaa ka yimaado waxbuu iska qorqoraa hadhow markuu ka baxo unbuu wixiiba xasuustaa allah war su-aashaasina caynkaas ahayd kana caynkaa oo hadeerba waad fadhidee maxaad u sheegi weyday laba malag oo wax ka nixinayo midab nooc gaara leh markay ku soo qabtaan ay ku gulgilaan huwiyadaada ku weydiiyaan aad garan weydo alamkayna haystaa waxa weeyaan shabaabkeennu maanta waa inay gartaan huwiyadoodii waa inay garan karaan yaa rabbigooda waa maxay diintoodu waa kuma nebigay rumaysan yihin islaamnimada say ugu dhaqmayaan maanta waa in laga jawaabaa aalaamtayna haysata waxaa ka mid ah oo sheekhaasi tilmaamayo cadamu taxdiid alhadaf dhalinteenna oo aan meelay u socotaba garanayn hadaf nolosha kama leh muxuu rabaa inuu nolosha xaqiijiyo waxba wuxuu doonaya ma leh inuu iska boodboodo timaha xiirxiirto dhafoorada mudmuto wahaluma jara saasaa la samaynayay
nabigu wuxuu tilmaamayaa aakhira munaafiqiinta iyo gaalada iyo markay hawiyada la weydiiyo haa inay ku jawaabayaan laa adri waxba garan maayo. maanta dhalintu in badanoo ka midi hadaf nolosha kama leh, muxuu u nooliyey kama jawaabi karayo. laakiin wuxuu rabaa inuu boodboodo, wuxuu rabaa moodada dambe ee naag baa isqaawinaysa tv-ga ka muuqanaysa marya xidhxidhanaysa, inantu waxay rabtaa naagtaasi marya ay xidhxidhayd inay xidhato. inan baa kubad laalaadayo tv-ga ka muuqanaya, inankanina wuxuu rabaa inuu kubad laalaado. bale laadiba maayo inuu kaan magaciisa meelahan iskaga dhadhajiyo, kolba shaadh magaciisu ku qoraya inuu xidho, isaga wuu ahaado markaa dhifooste. wuxuu ku leeyay tiim hebel baan anugu xoojiyaa, noloshiisa waa tiim hebel baa iska leh, uu ku dagaalansan yahay oo ku xiiqsan yahay oo u socdaa. hadaf ilxayaa, maxaad nolosha ka rabtaa, maxaad injaazinaysaa? cimrigu waa wax yar, wakhtigan yare aad nooshay maxaad rabtaa inaad xaqiijiso, inaad ifka keento? qofku waa inuu nolosha hadaf ka lahaada. dadka gaalada ahi hadaf aakhiro oo dambe ma leh, laakiin klaaska marka lasoo galo la yidhahdaa maxaad rabtaa inaad noqoto? injineer, adna booliis, adna siyaasi, askari, waxbay sheegtaan ardaydu, waxaasuu ku socdaa. innaguna iminka caqliyadeennu intii unbay noqotay. maxaad rabtaa inaad noqoto? injineer, booliis, askari. adiga gaalku isku ahdaaf baa tihin, isku meelunbaa u socotaan, isku waxunbaad raadacaynaysaa. waaba ka hadafka leh, inta kalena hadaf ma leh. idan hadaf baan jirin. alamka dadkan dambe inaga haysta waxaa ka mid ah alfashalu waalkasalu adraasiy. dadkan dambe, dhalintan dambe, waxbarashadii bay nacday, way caajistay. waxay iska rabaan habeenkiina inuu soo jeedo tv-ga iyo waxa ka soconaya uu daawado, maalintiina inuu hurdo. iskuulkan iyo waxbarashadan iyo jaamacaddan iyo waxanoo dhammi dhib bay ku yihiin. umamka maanta dunida joogaana gomadoodu waxay ku sugantaa waa cilmi, waa sabir iyo dadaal iyo barasho. ma waxay idinla tahay maanta maraykan iyo yurub iyo waxay dunida ku hogaamiyaan ma muusiga iyo tima xiirxiirka iyo kubadlaadistaa bay kula tahay? maya, intan wax magaratada lagu madadaaliyaa. tima xiirkan iyo muusigan iyo kubaddan wax magaratada lagu madadaaliyaa. laakiin maxay dunida ku ahaan? dunidana way ka taliyaan. maxay kaga taliyaan? dadaal iyo sugnaanshiyo iyo waxbarasho iyo ka midho dhalin ayay kaga warkeeneen. aqoon baa dunida lagu maamulaa, dunida technologya lagu hogaamiyaa. umamka maanta dunida hogaaminaya, barjadka dowladda ugu tirada badan leh waxaa la geliyaa cilmi iyo baxthi cilmiya. ummad waliba waxay tijaabinaysaa inaan ummaddeeda lagaga horaynin cilmi baadhista iyo wax cusub dunida inay ku soo kordhiyo. waxay tijaabinaysaa ummad waliba shabaabkeedu inuu noqdo caqliyada cusub ee wax soo saaraysa. walidaalika baa jaamacaadka dunidu waxay u samaysan yihiin inay wax cusub ku soo kordhiyaan. innaga xataa haddii jaamacada la dhiso, waraaqun baa la qorqoraayo, wax kalema soo kordhiyaan. ka ugu badan buug yaroo qoranunbaa ka soo baxa, laakiin wax cusub oo dunida ku soo kordhiya kama muuqato. ama iyaga jaamacaadkoodu waxbay inventions, maalin kasta jaamacaadkan wax cilmi cusub baa ka yimaada. cilmi dhakhtarnimo, cilmi technologya, cilmi caafimaad, wuxuu doonaya ha noqdo, maalin kasta cilmi cusub oo ay jaamacaadku ka iibiyaan markaasi. ama hay-adaha dhaqaalaha le iyo shirikaadka mutacadiduljinsiyaati waxay maal gashadaan ardada yararee jaamacaadka joogta iyo brofesorada jooga ayay maalgeliyaan. waxaa laga yaabaa lacagta dowladdu bixiso lacaga ka badan bay bixiyaan shirikaadka waaweyn. maxay rabaan? technology ay raadcaynayaan bay rabaan. cuquushan dhallinyaradee cusubi inay daaha ka rogto. maalin walbana cilmi cusub baa daaha laga roga. ayaa ka roga hal brofesor iyo 5 arday oo yararoo wato, 6 arday, 3 arday, 4 arday. waa dhallinyaro. dunida waxaan bedela waa dhallinyaro. halka brofesor wuu hagaa-uun, laakiin ciddan tajaaribtan iyo waxaan wadaa waa dhallinyaro. dunidu markaa aqoon bay isku hagtaa. innaga laakiin alamkayna haysta waxaa ka mid ah fashal baynu isku hagaynaa. dhalinteenna waxay rabtaa
inuu seexdo wax cuno timaha saliideeyo mar iska xiiro mar qadaadka ka gooyo mar xagga hore ka gooyo mar surwaalka dhajiyo mar daldalaaciyo shaqaladiisu isaga waa intan waar iskuulka dadaal war waxaan qabo ma xad sheegaysaa hadhow odayguba social buu qaadan jiray anaguna socialkaan qaadanay ama tagsiilaan noqon doona haddii la yidhaahdo iyo baskaan kaxayn doona marka inuu noolaaduu ka fekerayaa caqligiisii wuxuu ku soo koobay maxay inuu noolaado waayo tagsiilanimadan iyo basnimadan iyo waa nin wax kale ka waayay inuu noolaado raadinaya maaha inuu dunida tagsiiluhu miyuu tagsiile u yahay inuu dunida wax ku soo kordhiyo basluhu maaha xirfadaan caayayo waa dad xoogsanaya laakiin shabaab umadi leeday caqligoodu inuu noqdo tagsiilaan noqonaya ama foor bildahay eeganayaan inuu noqdo inay darawalla noqdaan waa dad hamigooda ugu sarreeya uu yahay inay noolaadaan ka warran qof bini aadam oo ilaahay abuuray oo hamigiisa ugu sarreeya uu yahay inuu noolaado umamka dunidu cilmaa lagu hagaa innaguna dhalinteennu hablayaynama waa isku dar weliba hablahaan ammaanaya waayo intaan dhalay iyo intaan arkayba hablaha waxbarashada ku sarreeya hablahaaba xagga jaamacaadka taga iyo secondary dhammaysta iyo hore u sii socda sida awgeed alamkayna haysta waxaa ka mid ah fashalkaasi xagga waxbarashada ka dhacay iyo caajisnimadan iyo aqoontan gaabka ahee waxa ugu fududuun la qaadanayo arday waliba wuxuu isku dayay waxyaabaha fudfudud ee meelaha un qalanka iyo waraaqda lagu wadwado inuu wadwado war waxa qaada hadda tana wuu adag yahay buu ku leeyahay oo hadduu adag yahay ma uu bini aadam ahayn oo waxa adag u badheeri karayn mar rabo wuxuu rabaa wuxuu marna seexdo marna tv-ga daawado marna kubadda soo cayaaro hadhowna imtixaanka la yidhaahdo maad saaqidin ee waad tamshi horaad u socon kartaa la yidhahduu raadacaynaya laakiin inuu wax soo kordhiyo oo qofnimadiisa sugo oo bini aadamka wax ku kordhiyo dunida wax keena diyaaru maaha waxaan leenahay ayuha alikhwa dhalinteennu marka xataa qaar badan oo jaamacadaha ka baxay waa shahaadatu zuur axad alculamaa bay waxay ka sheegeen shahaadatu zuurku waa maxay bay dhaheen qolo jaamacad ka qala jebinaysaa waa taa hadda qaadan doontaan buu ku yidhi markhaati beenaaluhu waa waraaqda laydin siin doona buu yidhi markhaati beenaaluhu jaamacad buu ka baxay aan waxba tayagaynin dhalinteennu waxyaabaha aalaamta ka jirta waxaa ka mid ah waan soo tilmaamay mar horena ihtimaamuhum billacb cayaarta ayaa ka weynaatay nolosha ma diidani cayaar qofku inuu jidhkiisa dhiso oo isdhiso oo cayaartu jecel yahay uu cayaaro kubad ha noqoto baasket ha noqoto orod ha noqoto in la cayaaro maaha mashkilad laakiin inay hadafulxayaa noqoto waxa loo nooliyay inay noqoto waxaad u nooshay inay noqoto inaad laacib noqotaa waxba dunida kumaad soo kordhin marka khasaaraad shabaabkeennu waxay u badan haddii maanta wax jiddiya aan weydiinno yaa culammadii dunida wax ku soo kordhisay garanaya xataa kuwa reer galbeedka ee gaalada maxaad garanaysaa haddaynu weydiinno waxaa laga yaabaa 2 midh inuu ka xasuusto waxaa cilmi dunida yaalla wixii keenay haddaan weydiinno dadkii muslimiinta ah iyo halyeeyadii dunidan soo maray iyo saxaabadii nebi maxamed maxaad garanaysaa waxaa laga yaabaa inaan waxba garan laakiin maanta haddaan weydiinno tiimamka dunida cayaaro ka waran yaa isbiis u ah manchester hebel baa u ah madridna hebel baa ka ah meel heblaayana hebel baa waxa tiim dunida jooga kuwa difaaca ka cayaara warkaa ka kaalay wuxuu yaqaanaa inta caruura u dhalay iyo fasixii dhoweyd halkuu tegay iyo sanadka meel heblaayuu marayay iyo waa gaal yar oo aan wax ka dhexeeyaa jirin yacni hadafku markuu lumo maka soomaa halkaynu u tukanee muslimiintu dee madiine islaam mooyaane aan gaal laga ogolaynba soo maaha ardada iskuullada dhigata subaxii iskuulka khamiisku waa dirays dhammaantood khamiis bay sitaan casarkii haddaad soo baxdo markaa qof dhallinyaro arki maysid ilaa iyo garan isboortiya oo nambar dhabarka kaga yaalla halkana magac weyne kaga qorayay buu sitaa waxaa dunida cayaare arkaysaan makay dhex tuban yihiin aduu meel kale maxaad u malayn marka haddii maka foor bildaha yaallaa uu yahay maka haddaad saa u eegto inaan yaroo dugsi dhexe ku jiraan garanku sito dhammaantii waa sport
waana Maradona iyo Maradona halkaa kaga wada qoran yani kuwaasa ku wada yaala idan waa alam itijaahi shabaabkeenu dhan kuu sii socdo runtii waa alam xoogan oo jira waxaan leenahay alamka dadkeenan haysta waxaa ka mid ah kuwa u dhigmo tacalluq shadiid ay aflaamta iyo muusikada iyo waxaas maalin dhaweyd Norway inan yaro Kanada yaraa yimi wixii dhalinyaro joogtay airportka agtiisa ay u hoydeen markaasaa la yidhi war dekan malawaabi diliyo boolisku meel dambe ka saaray waaba la wada ooyaya maxaa loo ooyaya waxaa la yidhi inan yaroo heesoo boodbooda weeyaan wiil yaroo cadoo boodbooday oo muxuu samaynaya wuu heesaya khalaas dadkani waxay dhowr maalmood bay bannaan cidla fadhiyeen inay arkaan la sugayay waa hadafkii ka lumay aalaamta muuqata waxaa ka mid ah haddaynu nihi qur-aanku dhalintu inoo tilmaamay kuwa waalidkooda ateeca aalaamta muuqata waxaa ka mid ah shabaabkeenniyo waalidkoodii uu la fududaaday khafiifsaday wax weyn u arag warkiisu ka soo qaad ma leh ixtiraam ma jiro inantu waxa laga yaabaa hooyada inay tidhaahdo dee maxaad aniga horta dheriga igu dirtaa karsada dee idinba waa wada joogtaana waa dhantiine haddaba inantii dhammayda la dhalay guriga joogtay inanku waxa laga yaabaa haddaad tidhaahdo ninba ii sheegaya aabba koobka ay soo qaad baan ku celiyey buu yidhi 2 jeer oo maalintii dambe wuxuu yidhi horta aabba mahaandhi ka baa halkan unbuu fadhiya wuxuu dhahay waxay soo qaatay isagu yani caqligu wuxuu ka gaadhsiisan yahay aabbihii markuu yidhi koobii soo qaad inuu arko odaygu mahaandhi ka baa kaan loo shaqaynaya muu koobkiisa doonto waa alam runtii alam halkuu ahaan lahaa inan iyo inanba dad waalidkood adeeca ducadooda u arkaa wax weyn taladooda u arkaa caqli nolosha soo tajribeeyo ka weyn yani waalidka wuxuu soo jiray noloshu maaha tanqal iyo buugga lagu dhigto qura noloshu waa tajaarib alxayaa waa qofka bini aadamka wuxuu soo maray waalidku nolol buu soo maray caqli badan buu sidaa ay ahayd inaad ka dhimbil qaadato adigoo dhallinyaro ah ka tusaale qaadatid waxay ahayd inaad dareentid nicmatul wujuud xataa aabbahaabaa leh waxaan leenahay waxaasoo dhammi waa aalaamtu sheegay sheekh saciid ibnu masfir waana aalaam caalam alislaami oo dhan haysa haddaadu isagu sacuudiga ka sheegay meel kasta ka taagan aamaashaynu u baahanay waa maxay waxa weeyaan inaynu abuuro dhallin toosan oo ku toosan diinta rabbi dhallin toosan oo ku toosan maxay diinta rabbi subxaana wa tacaala inaynu abuurno dhallin toosan oo ku toosan waxbarashada iyo cilmi baadhista ereygaa waan ku celcelinaya ikhwati waayo idinku jaaniska haysataan soomaaliya kuwa jooga jaaniska ma haystaan intaasoo jaamacadood baa ka furan laakiin waa kuwan qalinka iyo waraaqda la isku madoobeeyo wuxuun bay tari insha allahu tacaala laakiin idinku intaasoo jaanis baa haysataan oo wadannada ku nooshin duwalka jooga ay rabaan inay lacag idinku bixiyaan oo professoradiin sameeyaan oo wax walba oo ay fan baad baran kartaa laakiin dadkii himmadan lahaa baa liita idan aamaashaan qabaa waxa weeyaan inaynu dhallinteena dib u afuufno oo ku afuufno cilmiga iyo sugistiisa waxbarashada iyo qiimaheeda markaasaynu noqonaynaa kuwaynu la joognana dad muxtaramiin ah oo daatadooda sugaya dadnimadooda haddaad noqotona waddankaaga aad noqonaysaa qof wax ku biiriya waxaa laga yaabaa dad badani inay markiiba kuu soo qadimaan caraaqisha yaryara ka hor imanaysa loon baa la qaadanaya loon waxaana lama ogola kan lama ogola war dadku waxbuu bartaa isagoo aan loon qaadanayn waxbuu bartaa wuu dadaali karaa qofka bini aadamkii wuxuu ku xidhxidho war halkan baa timiyadaan cidina ku keenin waxaa qaarad iyo bad jiroo dhan baad ka soo gudubtay markaasaad leedahay jaamacaddan waddada loo maro ma garan karo hada macquul ما معقول آخر الدنيا بات كتمي ديورات فول عركة كبح بدمر دولك تشيح صحارى مر بدمر ما لا تكسب بوديني ما شرتو
waxaasoo dhan waxaad kaga booday caqlaad ku adeegsatay si aad waxaasoo dhan u mari lahayd caqligaa inaad wax ku baran kari weydo u malayn maayo inay jirayso waxbarashadu melihi ma laha dhib bay leedahay ardaygu weligii waa faqiir intuu arday yahay mushkilaad badan bay leedahay cadaadis badan baa kugula kulmaya mararka qaarkood waxaa la arkaa in midabkaagu raasiist iyo wax lamid aad la kulma mararka qaarkood waxaa la arkaa inaan dee adiga lagugu talagelin waxbarashooyinka sare maan baawar inaad waddan ka noqoto shaqooyinka hoose qabatid laakiin adiga xagga sare hunguri kaaga jira dee hungureeyo ha soo noqonin waa lay diiday laaf maahe waxaan markaa ku celcelinayaa leeyahay aamaashu yididiiladu rajadu aan qabo waxaa ka mid ah inay dhalinteennu dib u sameeyaan najaax cilmiya rag iyo dumarba inay sameeyaan maxay najaax cilmiya guul cilmiyeed amaansha aan qabo waxaa ka mid ah dhallinyaradu wakhtigooda inta ugu badan le inay wax macno leh ku bixiyaan rumuustaad caalamka maqasho meeshuu doone ha ka yimaado waa dad dadaalay odaygii maraykanka ugu ikhtiraca badnaa addison ayaa waxaa la weydiiyey cabqarinimadu intee baa cilmi iyo waxbarasho ah wuxuu yidhi ama intee baa nasiiba 1% baa janisa buu yidhi 99na waa sabir iyo dadaal weliba ninkaasi 1,000 iyo dheeraad ikhtirac buu leeyahy baateen 1,000 iyo in 1,000 shay ka badan buu dunida ku soo kordhiyo technology ah 1,000 shay in ka badan laydhkan inoo baxa waa ninkii dunida sameeyey ninka iskuulka waxaa looga eriyey wax garan maysid baa la yidhi iskuulka waa laga eriyey waxaa la yidhi waa dadkan maskaxdoodu dambayso oo handicap baa la yidhi wax badan ma baran kartid waa la eriyey laakiin hooyadii baa ku qanci weyday inuu handicap yahay hooyadii baa wax bartay islaantii dhashaa u xidhxidhatoo tidhi aniga inankaygu handicap maaha saasuu wax ku soo bartay dabeetana wuxuu noqday ninka ugu ikhtirac badan reer galbeedka malaayimka waxaan u malaynayaa mid waaxid australia iyo jabanis baa hadda ka badan baan filaya dhowr kun maraya laakiin ninkaas waxaasoo ikhtiraca samaynayay waa dadaal iyo quusasho la'aan iyo juhdi iyo wakhtigiisa uu ku bixiyey meel fiican wakhtiga dhalinta dambe waxaa alam ah xanuun ah wax laga xumaado ah wakhtigiioo la luminayo oo loo waayo wax lagu qabto dhallinyaradu imika iskuulladii fasax bay ka yihin waxaa laga yaabaa in inanka ama inanta guriga joogtaa 5 jeer ku maagaan waayo maxaanu qabanaa dee waa meeshaan umar iska fadhiya maxaad rabtaa wuxuu rabaa in meelaha alla soo wada mariyo caalamka o dhan baynu isku haysanaa carruurta hala kaxeeyo safar hala geeyo war waxa ka muhiimsan in wax la barto ma diidani fasax iyo meel la tago laakiin wakhtigu cimrigu weliba cimrigoo dhan maaha oday cimrigi iyo carruur cimrigeed kama warramayo dhallinyaroy cimrigaagu waa wakhtulinjaaz waa wakhtiga wax la soo saaro waxaynu u baahanay inaynu dhallinyarada ku qancinno wakhtiga inaanay iska lumin weliba inta ugu badan bay culammada qaar yidhahdeen inuu guriga joogaabaa fiican inan iyo inanba oo wax baranayo guriga qaar baa joogo tv uun fuushane ama uun facebook ku jira iyo network waxba tari mayso tv maanta o dhan haddaad marna 1 2 3 ka bilowdo ilaa 90 geyso haddana dib u soo erido kataloog maxaa ku jira marna hore u erido marna dib u erido waxba ka soo bixi maaya qof iyo dhowr kun oo saacadood oo tv aynu daawanay qof waxaya miyaa leedii laakiin ardaygii dhowr boqol oo saacadood jaamacadda galay waa dhakhtar dhowr kun oo saacadoodna waxaynu gallay maxay tv waxna kama hayno albert einstein ayaa waxaa laga sheegaa wuxuu yidhi rubuc saac waxaad sanad waddo you will be an expert buu yidhi within 5 yearsna you will be a national expert waa quarter of an hour rubuc saac 15 daqiiqadood
cilmiga aad sanad 15 daqiiqadood daraasaysay buu leeyahay khabiir baad ku tahay haddaad 5 sannadood min 15 daqiiqo daraasaysay cilmigaana national expert baad tahay buu leeyahay imise rubuc saac baad dhinta maalintii saacadda iyo rubuc iyo daqiiqa waxba ma naqaan waxa tiraahdaa waar shaqadii saacad baa ka horeysa waxaan qabta garan maayo meelaha ma sii joogjoogayay saacaddu iyada inaguma tirsana waqtiga daanay 5 iyo 6 iyo 7 ahayn saacadda iyo labada iyo iyagu waa hal lumaan waxaan leeyahay alamka waxaa ka mid ah ama xanuunada aan diidanahay tawqiir alculamaa iyo waalid iyo dadka waaweyn iyo waxaqoonta iyo kala damaynta weynaynta inay dhalinyaradu barato in dadku dadka ka roon uu ixtiraamo aqoonyahankaaga inaad ixtiraamtid waayo waa aqoonyahan cilmigu markuu ixtiraam helo abuu qofkan cilmiga lehina uu noqdo qof muntijo wax soo saaraya inaga se geeljiraheenna iyo diktoorkeennu waa isku qiimo waayo cilmigaan agteenna qiimo ka lahayn khabiirkaas dunidu ay u baahan tahay ee soo baxay iyo inanka geeljiri waa laba ninoo ilmaadeera shirka hadday maadaan meel kale ma cidina ma ixtiraamayso waxaynu u baahannahay inaynu cilmiga ixtiraamkiisa baranno dadka waaweyn ixtiraamkooda baranno culamada waxaad arkaysaa dhalinta ninkii 2 kitaab bartayba sheekha ugu weyna muftiga ummadda oo abu muran la taagay uu leeyahay qalday war bal har isagoo iskaba qaldanaanta ku dambaysay yani waxa sheekh shariif oo laga yaabo inuu culimada Soomaaliyeed nool maanta ugu weyn yahay ama ugu aqoon badnaa waqtigiisii ama rag la mid ah ama ka agdhow rag 40 sano 60 sano 50 sanadood wax sheegayo dad wax barayay ayaa nin 3 buug oo baallacad cad bartay uu leeyahay fataawidii ugu dambaysay baa caynka sheegay hadda waa nadka mid aanu garanayn nadka ayaa ka fatwooda bal fatwada waa dambaysay soo pages kama akhridaan yaa qora guriga kaasi dambeeyay mid fadhiya qoray ma sadoraysa nadkan soo akhriyo waxa ku qoran website hadda gurigan ka dambeeyo fadhiya kan kaasi jeeda nin baa wuxuu ii sheegay wala meel isu waramayso iyo markaas ay yiraahdo ma war cusub baa la hayaa kaale ma say yiraahdo waxan baa jiro oo kan baa dhacay usaan baa dhacay oo kan baa dhacay rasuul daana ku soo qoray buu kay warrabayay baa ku yiri warara ku soo qoray buu fataawida nadka ku taalana waa la mid aanu garanayno yarba wax ku soo qoray meel oo leh caynka alla 4 xadiis isugu toosiyay 2 mas'alo markaasuu nin caalim oo weyn oo muslim u haysta أولي فتوى صباح دعين كل شيء يسته. هذا لا يور ضلني يروي احترام كبرت احترام كلا احترامه دتك أهل العلم جاي أقوياء كي وايل كي علماء دتك واوين حتى قفك هدو قلدي قفك أهل العلم جا سفيع صحابة دي أنا دي شجع هالحديث وحا نبي عليه الصلاة والسلام ندل يرابه وشقين شري نكدل يرابه وشقين شري ربيعة بالورن شري أيه وحكوي لنبيه ألا تزوجوا أي ألا تتزوجوا حديث الإمام أحمد باورين ما تقول ستي مركز ثاني يقول لا رسولك سيو أن الشقضة دي وحاساك مشغولة يا ما قرسن ماي maalin dambe haddana wuxuu nabigu ugu yiri war maad guursatay markaasaan yiri ma ilaahay rasuulkiisa inaan ku khidmeeyo ku shaqeeyaan rabaa ma guursanayo maalintii dambe aan fakaro waxaan sidii war nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu kugula taliyay khayr uun baa kuugu jiray hadiidii nabiga ee maalin dambe hadduu ku yiraahdo maad guursatid waa yahay dheh maalintii dambe nabigu yiri ala tazawwaju maad guursatid markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisa waa guursanaya dee yaa ii guurinaya ilaa waxba ma haysteen nin xoolale ma yihiin markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi banu fulaan reer hebel u tag qola masaajidka yara durugsanay reer hebel u tago waxaad ku tidhaahdaa inanta heblaaya la yidhaahdo hebel dhalay ayuu nabi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha loo guuriyo
كعب بن أبي سلمة هلو قوريو كعب كله بس الربيع أبوها ربيعة هلو قوريو ده ووتجي نمكي ووتجي وحيدي النبي قال صادري عليه الصلاة والسلام وحيدي إن أنت بلا يلا إذا عنك سيها اللي قوريو حيدا النبي محمد مر هدوكو صادري كعلين منه إلهي الرسول كسوى يلينا صافرسو ولو قوري gabadhii baa lagu daray markaasuu soo noqday isagoo haddana murugaysan buu nabiga u yimi maxaa dhacay buu yidhi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo reer wanaagsan baad ii dirtay inantii waa laygu daray waxba layma weydin dee xataa inanta meherkeediina ma hayo waxbaba nin reerkoodaa buu nabigu u yeedho wuxuu yidhi war ha loo soo ururiyo laftimireed in leego dahaba waa loo keenay markaasuu yidhi qaado u geeyo waxaad tidhaahdaa inanta sadaaqeedii meherkeediina waa kan waa la noqday wuu tago wuxuu yidhi kanna waa inanta sadaaqeedii waxay yidhaahdeen nin fiican baa tay waa badan yihiin meherkaad bixisayna ilaahay ha ka abaalmariyo waa ka aqbaleen wuu soo noqday isagoo murugaysan buu haddana soo noqday wuxuu nabigu yidhi war maxaa dhacay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo reer fiican baan u tegey laftimireed dahaba baan deegayo waxaa laygu yidhi wax badan baad keentay ilaahay ha ka abaalmariyo dib waxaan ku aroos galana ma hayo wuxuu nabigu yidhi neef ha loo keeno ninkiibuu u yeedhay haddana abu burayda filaya in la odhan jiray burayda ayuu u yeedhay wuxuu yidhi wara loo soo ururiyo wan weyn baa loo soo ururay qiimiisiyo wan baa loo keenay kaana qal baa la yidhi wuxuu yidhi dee ilaahay rasuulkiisiiyo wankan maxaan ku daraa waxba ma haystee maxaa lagu qalayaa waka wuxuu yidhi orad gurigii taga caasho u tago weelka raashinku ku jiray halkaa yaalla nebigaa ii soo diray dheh caasho u yimi caaisha wuxuu yidhi caaisha ilaahay rasuulkiisa baa ii soo diray waxa lagu yidhi miktalka halkaa yaalla shaciirku ku jiro soo dhiib caaisha waxay tidhi oo managa wax kalaba haysana reerku inta halkaa ku jirta ayuu haystaaye laakiin mar hadduu nebigii ku yidhi soo dhiib dee qaada bay tidhi guriga nebiga intii haystayna taallayna wuu soo qaatay qoladii buu u yimi dabeetana wuxuu nabigu yidhi u geeyo waxaad tidhahdaa neefkaana qala shaciirkaana khubus ka sameeya dee welimadaadana dhigo nimankii buu tago wuxuu yidhi neefka naq inoo qala shaciirkana khubusa laga sameeyo dee welimadii arooskii ha la dhigo waxay yidhahdeen shaciirka xashidiisa iyo hagaajintiisa iyo dubistiisa annagaa kaa qaadnay laakiin wanka idinku kaxeeyo soo qala oo dee sukan keena waayahay buu yidhi oo wankii bay reerkoodii soo kaxeeyeen iyana khubuskii bay sameeyeen wankii baa la soo qalay waa la keenay markii la keenay wankii raashinkii nebigu u yeedhay saxaabadii subaxii baa raashinkii la cunay arooskii baa la dhigay rabiico haddana yara murugaysan buu nebigu arkay waa rabiica see wuxuu jiraa buu yidhi waa yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo dee wax biilaba ma hayo reerkii waxaa laaliya waxaa siiya meesha ma jiraan wuu soo kaxeeyey dhul buu nebigu siiyey beer ayaa qayb la siiyey qaybta ku xigta isagana abibakar baa la siiyey qisada waxaan u socdaa aniga iyo abibakar baa beerta geed u dhexeeyaanu isku qabsannay buu yidhi anigu beertayda xad u yahay iyo anigu tayda xad u yahay abibakar xaruuri buu ahaan jiray nin kulul buu ahaan jiray hadduu cadhoodo abibakar wuu cadhooday geedka anaale markay tagtay buu abubakar cadhooday dabeetana eray buu ku yidhi abubakar laakiin haddana awaab buu ahaa nin soo noqosho badan buu ahaa markiiba wuu soo noqday dabeetana wuxuu ku yidhi ninkani wuu ka xishooday abubakar waxba kuma odhan dhallinyarada ahay abubakar baa wuxuu yidhi iga gooso oo igu dhow wixii aan kugu idhi wuxuu yidhi kugu odhan maayo abubakar baa yidhi waad igu odhanaysaa waa ilaa nebigaan kaa soo ashtakeynaya eraygii xumayaa ku yidhi adna markaaga igu dhaho gooso wuxuu yidhi kugu odhan maayo wuxuu yidhi nebigaa kaa soo ashtakeynaya waan iska soo dabagalay buu yidhi abubakar oo sii socda abubakar oo sii socda qolo reerkoodii ka hortimi waxay yidhaahdeen buu yidhi waryaah maxaa dhacay aad abubakar ka daba socotaa sheekadii buu sheegay wuxuu yidhi beertaanu geedkaa timirtaabaa muran nagu yaro dhex maro dabeetana eray xun buu igu yidhi iga goosa buu yidhi waxaan ku yidhi waxba kaa goosan maayo dabeetana wuxuu yidhi nebigaas oo weliba bay yidhaahdeen ma intuu isagu ku maagay buu haddana ku leeyay nebigaan kaa soo ashtakeynaynaa ina wadi
deetana wuxuu yidhi waryaadheen waryaan laydin halaagin waa maxay bay idhaahdeen wuxuu yidhi waa duu shaybati lmuslimiin ninkani waa waayeelkii muslimiinta abibakar waxaan ka baqayaa inta aynu u tagno nebiga idinkoo safka ila socdo ee dhinac socda inuu abibakar cadhoodo oo uu u qaato inay iga hiilinaysaan dabeetana uu nebi maxamed cadhoodo dabeetana ilaahay cadhoodo bani salama in balaaya ku soo degtaa baan uga baqayaa buu yidhi ninkani waa duu shaybati lmuslimiine ka gaabsadoo reerihiinni qabta buu ku yidhi ha iska hadheen uu yimi abibakar baa nebiga u sheegay saaya saasaa dhacday buu yidhi eray xun baan ninkan ku yidhi iga goosaan ku yidhi waa diiday inuu iga goosto nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rabiica maa laka waliabi bakar rabiico adiga iyo abibakar maxaa idin kala galay maanta wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo sidaa uu kuu sheegay weeyaan dee aniguna waa waayeelkii muslimiinta abibakar waa nimaanu jecellay eraygu igu yidhi anigu kuma odhan kara abubakar marnaba ku odhan maayo markaasuu nebigu yidhi sax baa tee ha ku odhanayna waxaad tidhaahdaa allaahuma akfir liabibakarin dheh ilaahay oo abibakar dembigiisa dhaaf dheh ilaahay baa u dembi dhaafaye dabeetana rabiica wuxuu yidhi ilaahu abibakarna u dembi dhaaf abibakar wuu ooyey dabeetana uu iska tegey maxaan uga socdaa ninkan dhallinyarada ahi wuxuu diidan yahay abibakar oo isaga maagay inuu jawaabaa buu diidayay ixtiraaman lishaybatihi walicilmihi waliasbiqiyatihi wuxuu u ictiraafsanyay inuu yahay waayeelkii saxaabada inkastoo waayeelku uu isaga ku xadgudbay haddana wuxuu diidan yahay inuu ereygaa ku celiyo nebi maxamedna wuxuu ku leeyahay sax baatay waxaan uga jeedaa marka xataa haddii waayeelku qaldamo ama khata ama culammadu qaldanto waxaan leeyahay dhallintu waa inay barataa tawqiirka dadka waaweyn waxaan ku soo gebagabaynayaa masalati ziwaaj dhallinyaroy guursada hungurigan iyo indha taagtaagga kani wuu hadhayaa markaad guursato nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi war dhallinyarooy ninkii guur awoodo guurso waayo ishana isagaa u aqadu lilbasar wa axsanu lilfarj si kasta isagaa kuugu fiican dee haddaad hungurooto gurigaagaa inan fiicani joogtaa inan kale uma baahnid marka haddaad cid daawan lahayd tu qurux badan oo dadka kale iska qarisay oo keligaa daawashadaada ogol baa joogta uma baahnid marka waxaan ku soo koobayaa wakhtigu uu dhammaaday dhallintu waa fitratu linjaas ayuha alikhwa waa wakhtiga midho dhalka wax la dhaliyo laakiin duu himma waa inaad noqotaa waxaan ku soo koobaya markaa saxaabadii nebi maxamed ee caalamkan dawakhiyey ee labadii dowladood dunida waaweynee ka soo hoyday ee aqoon iyo diin iyo cilmi keenay dhallinyaray ahaayeen caalamkana umamku dadka ay ku xisaabtamaan mustaqbalku waxay dhahaan waa dhallintu siday u egtay ummaddii dhallinteeda ku faraxsan siday u diyaarisayna waa ummad han weyn oo rumaysan berrito inay calanka qaadayso oo iyadu umamka hoggaaminayso ummaddii dhallinteeda ka quusatayna waa ummad oohinta iska tiraysa oo arkaysa godka ay ka sii lalmato iyo meesha ay ka sii laalaado idan marxaladdu dhallinyaronimadu ay leedahay waa marxaladdaasi u baahanna isbeddel in laga sameeyo وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم